saaka waxaan kala taaganahay annagoo beelweynta makaahil waxaan taageersanahay go'aankii horgeday buu soo qaatay ee saami-qaybsiga ahaa ciddii jabisay go'aankan aw sharci baan talada ka maraynaa salaadna ka qaadayna dagday buursanahay waxaan dawladda u sheegaynaa Soomaaliland madaxweynaha ku-xigeenka cid kasta qusayso in go'aanka gaday buursi uu yahay Saami-Qaybsi ilaa uu helo in dhacay doorasho waxaan halkan ka sheegaynaa mursi waxa weeye gadabuursi marka la yiraahdo waa isku dan waa isku tol meel wala yaala oo wala degan oo kala maarmayn dawladda iyo shacabkuna waa kuwa istugsanaya ee dantu ka wala dhaxayso ma aha kolba oday socda madaxweynaha Soomaaliland waxaan leeyahay Muuse Biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka Saylici waxa weeye tolkiin dawladda idin le balaaran ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aad u tihiin ma aha shakhsi qofa ama afar wax la tirin kara ma aha waxa weeye badweyne Soomaaliland wala yaala intuu leeyahay waad ogtiin waad ka weyntiin oday soo dhuudhuuqsada oo dawladda iyo shacabka inuu isku jabiyo doonaya oo ka faa'iideysanaya oo naftiisa u hadlaya oo u hadlayn dantii badweynaha iyo dantii dawladda inaad dhagaysatiin wata waa nasiib daro koow sida awgeed waxa weeye waxaan jecelahay annagu haddaan gadabuursanahay meel quru ka wala guuraya muddo dheer buu ku jiray cabasho badan iyo wuxuu tabanayay qaybsi awoodeed oo dawladeed annagu waxaan xusbiga kulmiye ka tirsana ee uu soo halgamay ee kaayada soo cabay ee la daga soo saaray dawladda qayb ka haabanayn maadaama sidaa ahayd nabaduun baan rabnaaye wax shara ma rabno Saami-Qaybsigii gadabuursi doonayay annagu haddaan nahay samaroon ama gadabuursinahay waan rabnaa kuwa inile Saami-Qaybsi ma rabno ee annagu waxaan rabno doorashada waan ku ridaynaa waa kuwa dawladda isku jabinaya badweynaha in madaxda haddaad tihiin iyo dawladda haddaad tihiin inaad ka rarsaysiin waxaan loo dhannayn tolu dhannayn oo in beeli u dhannayn gobol u dhannayn inaad ka rarsaysiin horta waa nasiib daro waayahay shacabka Soomaaliland ma aha shacab 10 oday xukumaan anu waxaan leeyahay haddaan gadabuursinahay Saami-Qaybsigii madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka xukuumadda dawladda waan rabnaa in la qanciyo rag waadu geed ugu wala dacwiyo nina garta weelana waayaa waa nasiibtaasi inaan ka fool wala hadalno oo dalka nabadda ka shaqeyno oo jiritaanka dawladda ka shaqeyno oo danteena ka wala hadalay way fiican tahay laakiin maaha qolba afar odayo ana sida ku hayay waa dawladda iyo wax la isku jabinayaa badweynaha waxa weeyi hadalku wuxuu ku gun yahay oo murtidu ay tahay Saami-Qaybsiga 20 sano ayaan sugaynay annagu 20 sano ayaan dul qaadanaynay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan ka codsanaynaa iyo wasiiradaba waxaan ka codsanaynaa gadabuursi 20 sano dul qaatay nabad lagama doonayo maanta ninka hadila afar oday oo meesha hadila lama matalaan annaga lama matalaan waligoodna lama matalaan shacabkiiya waxay kala dilayaan dawladda iyo dadnimada Soomaaliland inay dhisnaato haddii la doonayo Saami-Qaybsiga cadki aan lahayn maanta waa inaan helo sidaa anigoo 80 jir odayaashii samaroon ayaan leeyahay waxaan halkan maanta ku joognaa beelihii gadabuursi beela ka mid ah oo bahweynta gadabuursiya khaasatan makaahil aad bayna 100% cid ka maqan beesha makaahil ma jirto sidaa darteed waxaan halkan isku soo taagnay ama beelahan makaahil ay matalayaan guud ahaan shirka gadabuursi uu xukuumadda uu la hortagay ee lagama baaqdaanka biyo kama dhibcaanka ah ee saamiga waana ku taageersanahay ka mid baana nahay waana meel kaliya aan uga soo wada jeednaa haday tahay dhacaynin waxa weeyi isaaqaligii uma laha xaq in uu meel mariyo Saami-Qaybsi la'aan doorasho in la qabto حق بالله وذا ليه هريرها أنا لقوا وذا هيا دولة الصومالية وطول ذاتك أودا حيسا هديتها هين وحكى الصورة قال يا مرها سيدا درتيد عدي
ciddii kale ee tidhaahda ama dalab u yeeshayna waxa weeye waa cid wax uun tabanayso macnaha qoori qardaba iskama dayso hadday makaahil aw yidhi hadal iyo hadduu sabarroo kale hadal yidhiba wax qiimo leh oo macnaha aad ku beer la xawsato isaaq ahaan ama dawlad ahaan oo macnaha aad raalli ku ahaataan ama aad macnaha idinku noqoto in ay macnaha saamigaasi aw meesha ku jabayo oo hadalkaasi uu meel marayo wallay ka tahay anugu waxaan ka horraysiinayaa hadalkayga waxoogaa yaroo geeraara dadka awdal ku nool iyo wakiilladay dirsadeen dariiqay marayaan dacalkii uga leexda dubbo weyn iyo qaarun daab inay la dhacaan bay doonayaan samaroone dambeeyow isilaali waxaan la yaabanahay nin baa yidhi war waa yaab maxaad la yaabtali ninka dibiga keliya beerta qodayaan la yaabbuud go'aanka iyagu hadalka badin maayo waa saami qaybsi halkan maanta waxaan u joognaa shirkan jaraad u qabananaa waxa weeye arrimihii beriyahanba jiray ilaa maaragtay 2014 soo bilaabay ee ahaa awood qaybsi macnaha dadka awood qaybsiga waxa iskaga jira saami qaybsi macnaha waxa weeye awood qaybsi weeye inay ummaddu wada lahaato wixii awood qaybsiga wixii lagu caawinay ee yuudo kale lacag bay bixisaa gobolka waxba ugama qorshaysna madaxweyne ku xigeen baa gobolku leeyahay la yiraahdo madaxweyne ku xigeenku macnaha awood uu leeyahay oo uu dastuurka ku leeyahay ma jiraba haddaan la furayn dastuurka oon awood qaybsi meeshan laga helayn waxan waxba kama soconayaan takale labaad waxa weeye waxa la yiri dawladdu ergaan hay bay dhaadeen madaxweyne musabixi xisbiga wadani xisbiga maaragtay ucid oo isku qola ay yiraahdeen ergaana ergada odayaasha kolkay dumarka kala kufsadaan bay erga noqdaan dawlad erga u noqota shicibkeega aqliga ma gasho marka waxaan leenahay wixii awood qaybsiga wax gobolka jooga imiga oo Soomaaliland gobolka Awdal gadabuursi iyo ciisabaha noqday inaan sargaala oo soddon jiri ma jiraan odayaashii dawladdiisa aad baa ka hadhay ayaa lagu taxaway wada dhintay nin qolo sargaali maanta ma jiro oo hayaysan oo daayar nin daamacad loo jiray midna kuma lihin shayba kuma lihinba marka waxa weeye maadaama aanay meeshan awood qaybsi jirin imikana odayaal baa la yidhuun maaragtay ergaanadeenna horgeedii baan qaadanay yidhi waxba kama jirayaan haddaan dadweynaha nahay haddaan dhallinyarta inta aan ugu weynahay nahay marna yeeli mayno in la yidhaahdo ree hebel baa aqbalay ree hebel baa diiday marna ma noqonayso haddaan gobolka Awdal nahay saami qaybsi haddii la waayo marna ma yeelano in la galo waayo saddexdii hore xildhibaanba awood way yeelan waayeen waxna waa laga dhigaysan waayay sad oday baa loogu sheekaynayaa kolka dambe la idin furi doonaa waxa 30 sano la furi waayay kolka dambe la furay waa goorma ma kolka meesha lagu kala tagaa marka waxaan leenahay caalamkana aan ogeysiinana oo yuudaan ogeysiinana in saami qayb awood qaybsi la helo mooyaane inaan lagu taageerin Soomaaliland shay ayaan aad iyo aad u codsanana oo cod dheer iyo cod gaaban aan ugu yeedhanaa aan anaguna diyaar u nahay maadaama aan nahay Salaadiinta Awdal inaan saami qaybsi inaan yeelayno doorasho la galo oo baarlamaan maadaama kuwii hore waxba tari waayeen waxba laga dhigaysan waayay culimo laga dhigaysan waayay caama laga dhigaysan waayay ana lasba dhigaysanaynba lasma dhigaysanayaba maadaama la isdhigaysanayn 13 xildhibaan ku yeesha 13 oo dastuurkuna ha noqdo fartaag marna yeelmin waxaan ka mid ah anigu odayaashii meesha tagay ee ma garanaysaa 23 qof ee odayaashii ka qayb galay baan ka mid ahaa kullay ammaan baa meesha saddex xisbiba ay ku soo ballameen ay noo jeediyeen madaxweynuhu u horeeyo gudoomiyaha xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga wuxuu ku xigo ka xisbiga wadani ha u dambeeyo ninkii dhulbaantay Cabdirasaaq Khalife ee afartan nin baa hadlay afartan nin odayaasha waxay lahaayeen ree Awdal baa lagu jiibsadaa ree Awdal baa waligoodba furaash lagu jiibsadaa maantana waxaan idinka maganahay furaashkii labadooda ee saamiga ma garanaysaa soo qaaday yiri annaga qaadnayna marka horeba ka gaar bay haayeen codka gobolka iyo aragtida gobolka oo dad hore loola sii hadlay oo hore looga sii shaqeeyay bay hayn laakiin odayaasha kale intooda kale baanu gunta anagu isku mid bay haayeen oo dhinac bay ka wada jeedeen labada oday mooyaane labadooday gobolka markaa waxba ka bedeli maayaan haday dawladda Soomaaliland ku qanacsan tahay laba oday oo codka dadka daba furaya oo loo afduubayo majority waa ka hadlaya
beesha makaahil iyo odayaashii samaroon halkay mareen baan annaguna marana kamana leexanano mur hadday ka qadhaadhahayna saamigu waa naga go'an yahay ama ha la hadlo ama cidi ha ka daba hadasho ama shirar jaraa'id oo la qabanayo waan maqlo hadla leeyahay taageera suldaamadii oo labada iyada suldaan qolol xalay wala waan maqlay laakiin arrintaasi arrin aan qaadanano oo aan aqbalano maaha makaahil haddii aan nahay oo lalahaa hadda ka horre makaahil baa jebiyey wax jebiyey waxaan ka hadlaynaa oo maanta makaahil halkan ku dhan yahay waxaan raacsannahay annagu gadabuursi halkii uu maro iyaan maanta haddii laydhaa marsannahay raggii hore ee gadabuursi halkii ay ka hadleen baan annagu maanta ka hadlaynaa horta waxa weeye dhada roob ma noqoto dadkanna waxa weeyaan samaroon baa kala jabay iyo qaar baa qaatay waxa ay wax shaqaynaysa maaha samaroon waa mid annagu haddaan nahay beelweynta makaahil lafdhabarta samaroon halkay martay baan marray taasaana ku qanacsanay waxaan yeelayno maaha saami qaybsi haddii la diiday jiritaanka awdal baa la diiday